soo dhawow marka hore dad badan aan ku daawanayo kadibna insha Allah waan siin doonaa gacanta soo taagan doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo bal maxaa ugu dambeeyay warbixintaadan waa arkay Facebook arrintaas inaa cambaareysay arrinta EFTA bal warbixin guud xaaladda guud ee soo cusboonaatay arrimaha dadka haysta EFTA war naga sii cabdiqani cali damar oo ku salaamaya iyo dhammaan daawadayaashaada barnaamijka ku xiran waa ku mahadsantahay sida had iyo goor dadka bulshada Switzerland degan iyo dadka xiiseynaya Switzerland inay yimaadeen warbixinada u siido howlaha hadda soo siyaada waxa waaye baarlamaanka labada aqal dalka Switzerland ayaa dooda ka sameynaya xagga arrimaha qaxootiga iyo waliba dadka ka imaanaya wadamada kale sida Ukraine oo kale doodaha ayaa socday marka doodihii waxaa xisbiyada Volkspartei iyo xisbi kale BDP iyo FDP ayaa waxay xoog saarayeen dadka forloofiga ofnaama haysto in laga gaaro go'aano adag maadaama horaantii bishii June la soo saaray qoraal sheegaya dadka ugu badan qaxootiga qaato inay yihiin dadka haysta forloofiga ofnaame ee siiba Eritreanka Soomaalida iyo Afghanistanka marka taa ayaa waxay saaciday baarlamaanka inay aqlabiyad ka helaan oo dadkaasi loogu sheegayo inay habboon tahay shuruud lagu xiro marka hadda qodobada la go'aamiyay labada aqal 10 sano ay sheegayaan laakiin Bundesratka arrinta hore ay ugu soo horjeestay laakiin aqlabiyadii baarlamaanka ayaa ogolaatay waxa loo gudbiyay Bundesratka ayaa go'aamo ka soo saaraya yaa mudan in shuruudaha lagu xiro mashruucda guud ee noqon doonaan 26 gobolada oo ku kala duwan aragtida sababtoo dadka qaarkood 5 sano waxay faa'iido u tahay dadka integration ayaa sameeyeen shaqooyin badan ay profession u sameeyeen horumar ayaa laga gaaray 13 sano ugu dambeeyay markii waagi hore ma aysan jirin shuruuc sheegaysa in qofku uu 5 sano kadib af qaadanayo dadku hore waxay joogeen ilaa dhowr 10 sano 8 sano 9 sano laakiin xilli dambe ayaa arrinta loo go'aamiyay faa'iido weyn ayaa laga helay dad badan isbedelan waa dhaceen laakiin xisbiyada hadda waxay ku doodayaan inaan la sameyn wax guud oo qof kasta oo haysta forloofiga ofnaame f aan loo jadiidin ay dadku lagu xiro shuruudo sida loogu xiro shuruudo qofka markuu beeda dalbanayo ama siida dalbanayo in la yiraahdo qofka integration ma sameeyay qofku ma shaqeeya dambi ma gelin shuruudaha ay soo bandhigi doonaan laakiin ilaa hadda wax xirgala maahan arrin soo baxana maahan waqtigeeda ayaa la sugaynaa laakiin labada aqal baarlamaanka arrinta waa isku raaceen hay'adaha xuquuqda u dooda waa ka hadleen hay'adaha jaalidaha la shaqeeya anaga qoraalay aan ka soo saarnay doodaha waa gudbinay in horumar laga gaaray xagga integrationka oo bulshada ay dad badan dhalinyaro ah ay shaqeeyaan ay jiraan oo kale waayahay Mustaf National Raadka dadka hadda u micneeno waa aqalka hoose ama aqalka golaha shacabka 200 oo xubnood ayaana ama 200 oo kursi waay marka haddii tusaale ahaan xisbiga Dimite iyo xisbiga SVP iyo xisbiga FDP oo isku geen meeshaas ku leh ka badan 120 xubnood National Raadkan ay marsiin awoodooda Bundesraadkan ay 4 xubnood ku leeyihiin ama 5 xubnood ku leeyihiin Dimite 1 xubnood ku leeyahay SVP 2 xubnood ku leeyihiin FDP 2 xubnood ku leeyahay muxuu marka noqon karaa mustaqbalka cabdiqani waxay ogtahay dalka Switzerland waa dal 26 gobol luqado kala duwan ayaa lagu hadlaa Switzerland waxay caan ku tahay inta badan Bundesratka marka uu shaqeynayo waxbay isla meel dhigaan aqlabiyad waxa la yiraahdo kuma shaqeeya Bundesratka waxay fiiriyaan danta shacab dadka Switzerland iyo gobolada kala duwan waxyaalaha hawsha ay ku hirgali doonto marka Bundesratka ayagoo xisbiye kala duwan ah waxay sameeyaan go'aan midaysan oo kulligood ay ku midaysan yihiin maaha majority iyo minority sida baarlamaanka u dhacdo waan waxa ay Switzerland ugu duwan tahay wadamada kale marka Bundesratka waa ka doodaya waxa laga yaabaa inuu labada aqal dib ugu soo celiyo waxa laga yaabaa in qodobo uu ku soo diro oo yiraahdo habkaas barlabaad ha laga doodo laakiin wili go'aanku Bundesratka iyo horreeyala sida ogtaan wasiirka cadaaladda Jans arrinta waa ka soo horjeestay wuxuuna yiri waxay liddi ku tahay horumarka dadka imaanaya integrationka sameynaya iyo familiyada wadanka caruurta ku dhalay ee iskoolaadka halkan ku bartay in shuruud noocaas lagu xiro waayahay laakiin su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay waxa hadda official baarlamaanka ay dhaheen dadka EFTA haysto meeshii 5 sano ay ku bedeli jireen 10 sano ay ku bedelayaan baarlamaanka waa ka dhamaaday maxaa xigi kara marka baarlamaanka waxa idin kara Bundesratka ayaa soo saaray shuruucda wadankan
oo baarlamaanka ayaa iska leh inuu go'aamiyo laakiin bundesratka wuxuu soo saarayaa habkii uu ku dhaqangeli lahay oo waaxda cadaaladda immigrationka ayaa laga rabaa dhaqangalkeedii marka waxay soo raacsiidaa mar kasto waxa la yidhaha osnam la yidhaahdo kale waxaa la yidhaha habab kale waxaa jira dadka loogu talagalay dadka integrationka sameeya dadka dadaalay dadka curyaamiinta dadka oon aan awood u lahayn oo kale inay sameeyaan integrationka marka waxaa soo bixi karo hartifaal waxa la yidhaha jiri waagi hore oo dadka ku dalbadaan beeda marka shuruucyo ayaa soo bixi doono oo leeyahay qofkaas marka waxaa sameeyo wuxuu xaq u leeyahay inuu beeda dalbado dad 5 sano ku dalbadaa jira dad 3 sano beeda lagu siiyaa jiro oo profession sameeyay oo dadaalay marka wax guud shuruucda waa tahay laakiin waxaa jiri doona qodobo kale oo dadku ay ku dalban karaan marka ay rabaan marka kuwaasan ka war sugaynaa waxaa laga yaabaa inay 2 sano qaadato waxaa laga yaabaa 1 sano inay qaadato in dhammaad sanadka inuu soo baxa laga yaabaa waa arrin u taal waxa bundesratka iyo dadka sharci jadinta ah oo laga rabo inay hawsha waaxda same oo kale immigrationka oo ayada howlahan qusheeda iyo goboladii oo arrintan oo inta badan ayaga saameyn doonto waxaan ogtahay dalkan gobolada qaarkood ku kala duwan xagga shuruucda gobolo waxaa jira 5 sano dadka aan bee ku siin iyo gobolo ku siiyo waayahay marka laakiin Mustafa marka hore efta laftirkeeda qaab integration lagu qaadan jiray oo qofka waxa la dhihi jiray waa inuu wadanka 5 sano joogaa waa inuu f haystaa waa inuu luqadda aan iska haystaa waa inuu ugu dambeyn uu shaqeeyaa ugu dambeyn sanadka ugu dambeeyo san ceer qaadan waa inuu san batribing ku jirin waa inuu staff register ku jirin waa inuu integration sameeyay intaas baad qofka hore 5 sano ugu qaadan jiray macna maxaa had integration kala laga sii raawo muxuu noqon karaa hadda waxa isbedelay waxa waay efta oo la jadiidiyo 1 sano ayay ahayd dadka efta qaadanaya ayaa shuruud lagu xiraya inaan sanad kasta afka la iska jadiidin dadka efta qaasto sanadii ku xareey jireen waa loo jadiidi jiray hadda waxa imaanayda in dadka shuruud lagu xiro efta haysta oo la leeyahay qofka hadduu dadaalin efta looma jadiidinayo taawa hadda wax soo kordhi karo oo imaan kara oo laga rabo dadku inay shaqeeyaan inay dadku ay noloshooda gacanta ku qaataan ay shaqeeyaan oo kale oo social ka baxaan oo kale taawa hadda oo culays kala saari doon taasay u badan tahay oo efta shuruud hadda shuruud kama jirto efta sanad kasta qofka waa loo jadiidiyaa marka hadda waxaa imaan doona in shuruudo lagu xiro sida beed iyo sidii oo kale laakiin goorma imaanayda sanadkee dhacaysa ilaa hadda ma ogin waayahay marka haddii tusaale ahaan su'aalaha waa idin siina hal mar ukaadiya muud gala anaa idin gudbinaya su'aalaha anaa dhammeynaya markas idin gudbinaya raalli ahaada haddii marka hadda tusaale ahaan baarlamankii labada aqal waxay yidhaahdeen efta waxaa rabnaa in 10 sano loogu bedelo qofka markuu beed dalbanayo soo maaha marka haddii bunduski hadda aaday bunduski ma waxaa laga yaabaa inuu ku raaco say u soo gudbiyeen oo 10 sano uu qaato oo yiraahdo hadda kadib qofka raba inuu beed dalbado waa inuu 10 sano f haystaa ama 10 sano wadanka joogaa ma laga yaabaa inuu saas ku raaco mase wax buu ka bedeli karaa qaab kale uu macaamili karaa sida ogtahay wadankan labada aqal baarlamaanka ayaa iska leh awoodda ugu badan bundesratka waxaa laga yaabaa inuu shacbiyadda ku celiyo oo yiraahdo shacabka cod ha u qaadan arrintan taasna waxay la mid noqonaysaa tii baarlamaanka oo kale waa shacab dhanka midigta ah Soomaaliya inta badan qodobadii baarlamaanka ay go'aaminayaan laakiin waxaa la raaci doonaa qodobo kale oo xadidaya qofka loo jidinaya efta shuruudda uu wato laakiin inta badanba waa iskaga mid yihiin laakiin ujeedada loo socdo dadka arrimahan analysis ka sameeya ama doodaha ka sameeyay ama sharci yaqaanada waxay leeyihiin waxa loo socdaa waxa waaye dadka efta haysto oo iskaga jiidi sanad kasta loo jididi jiray dadka ayaa la rabaa in xooga culays la saaro sida qofka u shaqeeyo ama isbedelo laakiin taa dhinaca kale dadka waxay sheegayaan qofka haddii aan loo jadiidin oo wadankiisana aan lagu celin karin wax ay ka bedelayda male 5 sano ka hor waxaa jirta dadka beedi qaato oo kale dadka qaarkood inaan loo jadiidin oo eftooda loo soo celiyey sida gobolada Aaraaw oo kale iyo Turgaaw laakiin haddana wax iskama bedelin qofka wadanka uu degan yahay haddana dib waxay u noqon dadka beedooda in loogu soo celiyo marka shuruudaha qaarkood waa adag yihiin laakiin dadka Soomaalida oo kale ama Eritreanka ama Afghanistanka oon wadamadooda loo celin karin waxay ku noqonaysaa wahay goboladii ayay dhaqaale xumo ku ridaydaa iyo qofkii aan shaqay karin marka shuruudaha marka qaarkood dhinac kale daa ka fiirido u fiicanta qofka in la yiraahdo dadaal horumar samee shaqay profession baro qofka markaas uu dadaalo ayuu helayaa sharci waayahay waa mahadsan tahay dad badanaa soo qabsaday oo raba inay su'aal ku weydiiyaan saaxiibayaal saa u kala horeysaana idin siina gudoomiyaha su'aasha aad weydiinaysaan fadlan su'aalaha aysan noqon su'aalo personality ah oo su'aalo oo ku saabsan sharcigan aan ka hadlayno iyo arrimaha la xeeran qofka ugu horeeya rabbi talo ku filan mood ka soo bax su'aasha rabta inaad weydiiso okay
أي سؤال waa ka soo baxay su-aasha aan rabo inaan weydiiyo waaba su-aasha hadda hadalka ka hor keentaba oo tiri xee heetay yaan laga hadlinin أي كهذا ويدي وفيرنا أي horta aniga dadka efta heestaan ka mid ah أي marka ugu horeyso hadda hal sanay baraa heestaa efta ciyaalna way iga maqan yihiin oo saa ku keensanaya xitaa ma aqaani marka maxaa ay bannaan أي قدومي waa maasanta walaashiis waxaa kuu bannaan inaad luuqadda waddanka aad barato inaad shaqeeyado isku filnaatid markaas ayaa xaq u leedahay inaad carruurtaada aad dalbatid haddaa awoodi kartid shuruuddaas ayaa ku hor taalla inaan wax barto inaad shaqeeyana inaad luuqadda aad baratid aad ku hadli kartid shaqana aad heshid ugu yaraan 80% xataa oo iyadoo la caawinaynin ma keensan karaa mise in wax laga caawinayo waaye in adiga aad shaqeydo waa inaad dadaashid ood luuqadda baratid qof dadaalaya aad noqotid oo shaqeydid waa dadka sharci yaqaanada dadka shuruudaha ay ku xiraan oo kale markii qofka looyarka uu saacidayo waa in qofka oo sameeya horumar sameeya luuqadda waddanka gobolka uu degan luuqadiisa inuu ka hadlo qof dadaal inuu yahay hadday hooyo tahay oo carruur kale ay haysatid inaad tidhahda aniga 100% aan shaqeeyay waa dadaalay luuqadiina waa bartay intaas ka badan ma shaqeyn karo markaas waa macquul in dalabkaaga looyarka uu ku sii saacido oo looyarkaaga carruurtaada lagu keeno in carruurtaada lagu keeno taas ay kaaga xiran tahay inta badan laakiin qofku waa inuu shaqeeyaa ugu yaraan 100% haddii carruur kale kuu joogaan haddaa keligaa tahana 100% inaad shaqeeda kuu ran قدومي قبل هذا سؤال كسي حوجيو عرورت لكينايو ما waxaa jirta da xadidan oo la ogol yahay in wadanka lagu keeno carruurta 18 waxay ka yar 18 waxay ka yar carruur maahan 18 waxay ka weyn carruur maahan 18 waxay ka yar waa macquul اوكي اي والله waxaan filayaa ama gaarin okay ay qof ku xigan siinay ay soo baxay ay walaal waa maasantihiin ay walaal adama ay yaa ku xigo ay سؤال زوج عبد وكذا ولا هوريا قفك كا هوريا عبد يا كلا horta waan salaamayaa dhammaantiin asmaan waan salaamayaa waxaan kaliya su'aalaha waxay yihiin markii mataqaanaa hadda haddii anigu af ma haystaa soo maahan ma sharcigan ma wuxuu qabanayaa dadka efta hore u haystay oo calashaan mise qof kastoo f haysta haddii qofku sharci f haystay mise wixii hadda ka dambeeya soo galaya wey waa su-aashii kore su-aasha labaad oo aan qabana waxay tahay sanadka calashaan hadda da'yar baana inta mise haddii aan hal sano joogo ama mataqaana waxa wey calashaan halkii sano ma 2 sano ugu dhigan tahay mise hal sano calashaan halkii sano ma sanadka si toos ah waddankan loo xisaabiyaa mase maalintiina sanad bay u tahay habeenkiina sanad bay u tahay labada su'aal baa qabaan قدوم yahay waa maasanta walaalka aniga sharci yaqaan ma lihin laakiin sidaan ognahay ilaa hadda dowladda Swiss-ka waaxda cadaaladda iyo immigrationka socdaalka sooma ay saareen hab xilliga uu bilaaban doono waxa laga yaabaa inuu 2 sano noqdo inuu 3 sano noqdo oo ka horba adiga aad beed dalba kartid laakiin qofka hadduu luqadda waddanka barto oo shaqeeyo ama profession barto qofka hadduu waxbarasho ku jiro leerado ku jiro oo profession oo gacmaha kula jiro waa ka jaanis fiican yahay qofka kale qofka wax baranaya qof kale waa ka jaanis fiican yahay marka qaarkood 5 sano xataa ma sugaan 3 sano ayaa la siiyaa marka qofku inuu asaga dadaalaa muhiim u ah laakiin looyarada ay u tagi kartaa laakiin ilaa hadda xilli oo la sheegay ma jiraan waa barnaamij hordhac ah oo baarlamaanka uu go'aamiyey dowladda hortaala marka qaarkoodna sanado ay qaadataa laakiin xilli kuma xirna xilligaasoo bilaabanaya dadka cusumiya ilaa hadda lama oga dadka Soomaalida waxaan u sheegay arrintan inaysan xoogaa ku talax tagan aysan cabsi weyn ka gaarin waa iska arrimo dowladeed waqti ay qaadataa qofka hadduu dadaalayo wax baranayana arrimaha inta badan oo u fududaa doonta hadduu alla yiraahdo waayahay waa mahadsan tahay qof ku xigo cabdi hadda gudoomiyuhu iyo dhammaantiin inta meesha saaran su-aasha qabo waxay tahay maadaama sharciga afta 10 sano gacanka laga gaaray yahay afta ma laga yaabaa inay yeelato baasboor sida biyoo kale muddo 10 sano ay dhaqan kaliya inay yeelato baasboor iko wadamada kale laga yaabaa inay macnaha afta ay yeelato baasboor ay gudoomiye waa masantahay walaalkiis horta marka waxaan is weydiinaynaa doodahan maxaa dhaliyay doodahan waxaa dhaliyay dadka haysta forroofga ofnaam efta ay inta badan ceerta qaata ay aan shaqaynin laakiin qofkii shaqaynaya oo isku filan
oo hadday dhacdo in ehelkiisu aadayo ama uu waalidkiisu xanuunsaday inta badan waxaa loo sameeyaa dukumenti kumeel gaara qofka uu ku bixi karo laakiin wadankii uu ka yimid Soomaaliya ma aadi karo marka laakiin ilaahay hadda u malayn maayo in efta haddii mar 10 sano haddii laga dhigayo la yiraahdo in dukumenti ay ku baxaan la helayo barigi hore waxaa jiri waxa la yiraahdaa garansi card dadku ay ku bixi jireen taasna dadku markay dad kale ku keeneen ayaa la joojiyay laakiin qofku wuxuu xaq u leeyahay hadduu shaqeeyo oo isku filan yahay inuu dalba karo sharci sababtoo ah qof aan shaqeynin ma uu bixi karo sababta dhaqaale ku filan ma hayo inaan marka qaarkood si loojis u fakarnaa fiican qofka hadduusan shaqeynin oo la kabayo xataa qofka seeda iyo beeda haysta marka qaarkood su'aalo ayaa laga weydiiyaa baasaboorkooda ayaa sanad kasta la fiiriyaa oo meesha hadduu baasaboorka baxay haddii kale ayaa su'aal laga weydiiyaa maaha kaliya qofka afta haysto okay waa maasantahay biid kusoo xigso cabdi waa maasanta saaxiib walaalaha jawaab filaa waan idin salaamay adiga iyo guddoomiyaha iyo dadka meesha saaranba salaan ka bacdi guddoomiyaha su'aal baan weydiinayaa waxaan haystaa efta 9 sano 9kii sano ma ii jiraysaa mise 10 sano la sheegay baan hadda ka bacdi tirsanaya waa mahadsantihiin walaalkiisu waa mudan tahay 9 sano inaa haysato ma ahayn waa maxay 9 sano waxaad efta u haysatay sababtoo hadda waxaa laga hadlayaa qofka integration sameeya ee dadaala ee caafimaad qaba inuu ku dalba karo 5 sano haddii wax biribaato adiga gooni ku ay ku hayeen halkan aad ka sheegtid ma ahan laakiin 9 sano inaa haysato ma ahayn biidow efta 5 sano markaad joogto wadanka sanadka ugu dambeys aad shaqeyso waa iska bedeli kartaa 9 sano maxay kugu gaartay haddii ay arrimo qaas yihiin ka dhac wallaahi arrimo kala jira muhiimaddu waxa weeye ma 10 sano soo socdaan tirsanayaa mise 9kii sanaan haystay waa ii jirtaa maya 9 sano waa ku jireeda laakiin haddii 10 sano la yiraahdo 5 sano haddaad beed ku qaado weyday 10 sano dadka waxaa looga dhigay inaan fahno waa shuruudda iyo waxa keenay 10 sano in laga dhigo 10 sano in laga dhigo waxa keenay efta hadda qof kastoo f haysto sanad kasta waa loo jadiidiyaa asagoon shuruud la weydiin hadda waxaa looga dhigo waxaa waaye dadka efka loo jadiidinayo looma jadiidi doono sidii hore shuruudo ayaa lagu xirayaa in integration sameeyaan qofka inuu socialka inuu ka baxo caafimaad qabo shuruudahaas ayay noqonaysaa marka 10 sano waxaa ka sii daran in qofkii efti aan loo jadiidinba hadduusan shaqayn taasaa culays kale ah sababtoo dadka xisbiyada arrintan keenay waxay u sameynayaan in dadka culays lagu saaro inaysan social qaadan aysan shaqaysan ee dambiyana galan laakiin qofkii shaqeeyo aan dambi gelin sidii hore ayaa loogu jadiidinayaa wuxuu nasiib u leeyahay inuu beed ugu bedeshaba inuu 10 sano sugin laakiin dadka loo dal leeyahay oo su'aasha ka timid iyo doodihii markaan dhageysanay waa dadka afka la iskaga jadiidiyay sanad kasta oo ayagoo shaqeyn kara aan shaqeynin ama dambiye galay biidow haddaa 9 sano joogto sharci soo bixi doono bunduska soo ansixinaya ha sugin haddaba xoog saar intuu sharcigaas soo bixin inaa xareysato haddii xog ama caawinaad xagga integrationka u baahan tahay guddoomiyaha Soomaali Swiss diaspora ku jiro snapkiisa tiktokiisa ka follow garay hal follow garay wixii xog asaga idin wadaaga insha Allah ayo waa mahadsantahay walaal qofka ku xigo ay qaraam soo hadal haddii gabadha ku xigtaa siinaa السلام عليكم دمانتي وانا سلامي umada meesha ku Soomaaliyeed anuu wadankan waxa jooga muddo yar sanad ku dhow marka under 8 ku jooga ma fahantay gudoomiye marka waxa la dhahay dadka ma taqaanaa oo daa'irka wadanka isku dhiibay oo waqtiga marka la erada bilaabaan iska bedeli karaan sharciga la dhahay macquulna marka miyaan ka bedeli karaan oo ma santahay qofka markuu oo da'diisa yar tahay waa qof ka jaanis fiican qofkaas dalka dib loogu maceliyo xuquuq gooni ayuu leeyahay xag waxbarasho oo arrimihiisana dad wuxuu haystaa oo form oo asaga saacido marka laakiin qofku inuu horto waxbarasho galaa oo professional oo qofka barto qofka markuu leero galo waa ka fududahay 5 sano 3 sano dad ku qaata in aragnay laakiin marka qaarkood waxay ku xiran tahay gobolka aad degan tahay gobolka ayaa degan tahay ay ku xiran tahay gobolka degan Arrow inkastoo aan jeclahay inaan waxun ka sheegin laakiin Arrow waa adag tahay laakiin mar haddaad dadaaleedid oo leeraha aad wadid waxaan rajeynayaa
muhiimadda inaad leeraha abshiro sameeyo aad xirtida muhiim ku ah taas ku dadaal jaaniskaaga aad u fiican yahay qofka hadduu dhalinyaro yahay oo leera helo insha allah gudoomiyahay haye uma mustafa dad badanaa sugaayo marka su-aalaha haddii aan dhowr qof kusoo gabagabeyn ii sheeg waa kaa joojinayaa maya waa wadi karnaa aniga waxaa muhiim u ah su-aalahan shankanka dhalinyaro badan Soomaali dhibaato ku qabto oo Dublin oo kale taasoo kale hadda waa garanayna dad badan ay ka faa'iideystaan inaan rabnaa culays saaray inta hadda aan soo fasaxan u dhameynaa kadib arrinta Dublin kan galeynaa dadkii su'aal ka qabo waa Dublin hadii su'aal ka qabin okay waa tan wadeynaa haye gabadhaan soo qabso salaamu calaykum calaykum asalaam wa rahmatullahi laba su'aala wataa in 2022 soo galay ilaa laankana waxba igalama hadan wax wara ma ka hayo in badan waa raadiyay mar walba waxay leeyihiin waa ku maqannaa iska sug taas waa su'aashaas midda labaad ayaan hor waxa soo gelisay Cabdiqani adoo dhahayo macnaa 12 bisha 10aad waxa hirgali doona qofka wadanka soo galay in laga qaado fara iyo indhi waxaas ma saameynaysa qofka ninkiisa hadduu keeno macnaa gabar ninkeeda hadday keento ama naag nin naagtiisa uu keeno sharcigaas asna ma saameynaya haye gudoomiye adaa jooga maanta tan dambe waa dadka sharci yaqaanada ayaa og laakiin tan hore wadanka waxaa tiri hal sano baraa joogtaas miya laba sano joogtaa 2022 soo galay in baa haystaa marka miya intii haystaa okay arrintaada weli dowladda dhinac uma dhicin go-aan lagama gaarin marka qaarkood waa fiican tahay laakiin waxaan kugu talin lahay aniga qolooyinkan cilmi nafsiga oo dadka la sheekaysta inaad qolooyinkaas xiriir la yeelatid si hadhow waraaqa ay kugu qoraan marka looyarkaaga inaad xiriir la sameydid ood qolooyinkaas u tagtid oo arrintaas dhinacaasay kaaga fiicnaan kartaa inta badan dadka ay saacidaan sababta marka qaarkood go-aanka oo lagaa gaarin kolley adaa og waxay isku dhiibtay waxay ku xirantahay dowladda arrintaada dhinac uma dhicin interview xitaa igamaba qaadinba liima wareysanin xitaa lawyer maxaa ugu tegi weyda 2 sano caadi maahan 2 sano maan sanadka saddexaad ay dhamaan ka afraad ay ku jira lawyer ma lihid lawyerka waa la hadlay markaas tiri Sam way soo jawaabi la aday 3 mar fariin u qornay maadaama Sam soo jawaabi la aday maxkamada aadeyna macnaha Sam maxkamad u aadeyna marka iyadan waa fahmi waay meeshaas ma kale arrimo aan ogeena jira laakiin lawyeradaada waxaa muhiim ah inta barnaamijka maxkamadda la tagin ka hor inaan qolooyinkan cilmi nafsiga aad la xiriirtid oo kula sheekaystaan hadhow warqadii ay kuu qori karaan qof inaad tahay dulman oo dhib ku haysto waxyaalahaas kale muhiimay ku tahay inaad dhinacaas ka aadada kugu talinahay gabadha waxaan rabaa inaan weydiiyo wadan kale oo Yurub ma faro ku leedo aan Swiss ka ahayn ha wadankee waay talyaaniga mana qarinin way og yihiin wax kasta okay talyaaniga 6 bil lagu soo jawaabaa dad ma qaataan 6 bil kadib ina qaxoot in dalab laakiin sharci talyaaniga ma ku leed waa ku lahaa waana sheegay inta way og yihiin sharci qaxootiga ku leed miya maya sharci qaxoot okay maya kan kale allora dadka sharci qaxooti ku leh isla habeenkii la wadaa markay 3 bil joogaan oo dib loogu celiyo laakiin qofkan sharci ku lahayn talyaaniga wadanka lagama celiyo waa joogaa arrinta hadda inta sano joogtada waxa weli jaaniskaaga aad u fiican yahay dowladda ayaan go'aan gaarin laakiin isku day inaad looyarada la xiriirtid iyo qolooyinkan oo dadka saacida inaad la xiriirtid muhiim waa maasanta ay azim soo dhow saad ay waa ka qaadnay ciyaartii kale mud soo qaadan adiga gudoomiyaha kulli asxaabta waa salaamay أنا سؤال شقة وحواي قفك مركو منير هاي ودائر هاي شرعي كل عيا ولا صوص هاي مثلا شرعيا إلا هدا ولا صوب بندقي بلاد البرلمان إلا هدا ما أجن هبكو وشقين دونه مشاريع كاستمركي ولا صوص صارنا دولد وحكور جليدا واحدة ميجريشن كسعدالك عدالة أيها صوص شيء دونه لكن قفك مركو دلنيري هاي وعصده عصبته وكله ويمد حوالي عمل جوا هل سنة جوت انترفيو اللي بعد مكودا ما وروح عملنا مع الشرعية وكيس هذا بس إذا كيس تجيب حوق صار أنا واحد برتي تذكر قفكم دوليري هاي وأكيد جانس في عين قفك كله مرك قاركود 5 سنة 8 سنة أنا قارت لقمة يا بس 11 سنة لكن حوق صار أنا واحد برتي نصيب عنه كورة جنين ولا كيس إن شاء الله وما سنتين جميع أدخلنا وما سنتين هاي برادر صدق مسؤول كساقص ما سنتي السلام سؤال شو بدهم يودينا هاي وعن هذا كم سويس كعصب مركا مرة دشر عصب لذي كلنا يو
inaan sii joogo oo aan sharcigaa cusub laga hirgelinayo ku caladeego iyo inaan ka baxo kaga fudud وما سنت انترفيو لابد انترفيو ما كون دماده شعب hal مقص يا hal interview waxaan kugu talinayaa inaad isku daydid inaad adiga dhibaatooyinka kaa soo gaar safaradii aad soo martay haddaad Soomaaliya ka soo baxday haddaad Liibiya soo baxday inaad interviewga labaad aad ka faa'iidaysatid oo wax shakhsiyan adiga kugu quseeya aad si fiican uga hadashid mar haddaad waddan kamid ah Yurub aad timid Swiiska ah wax faa'iido ah kugu jirta ma leh inaad waddan kale Yurub sii aadid aniga ahaan waxaan kugu talinahay inaad lugaha dhulka dhigtid aad dulqaad yeelatid aad ka faa'iidaysatid hadda gobolka aad joogtid inaad luqadda waddanka baratid chance kaagana interviewgan aad si fiican isku diyaaridid meesha aad ka timid meesha ka soo baxday qolayska Liibiya ka haystay waxa laga yaabaa in sharci lagu siiyo laakiin adiga ay kugu xiran tahay gacantaada iyo tii Ilaahay waxa laga yaabaa maalintaas interviewga ka hor inaad si fiican u diyaar garowdo waxa anigu halkan ku darsanay Cabdiqani dhalinyarada Soomaalida waxaan ku arkay interviewga markay galayaan dad diyaarsan ma qofka sugaya imtixaan galaya waa inuu imtixaanka jawaabtiisa oo asaga oo inta badan xoogga saarso jawaab fiican u helayo marka interviewgu waa inuu qofka meesha ka yimid taariikhda oo soo baxay Liibiya inta bilow joogay magaalooyinka Liibiya joogay dadkii Liibiya ku haystay dhibkii loo sii geystay waa adoo riwaayad aad gashay jilaya ama ciyaar aad shalay daawatay Arsenal iyo Chelsea oo qofku yiri ciyaarta iga sheekay inaad ciyaarta uga sheekay kartid hadda qofka interviewga ka qaadaya ma oga meesha ka timid iyo dhibka ku soo gaaray adiga kugu xiran tahay inaad si fiican aad u sheegtid marka qaarkood dhalinyarada waa ku adag tahay inay wixii si fiican ay u soo bandhigaan waxaan ku talinahay inay waqti siiyaan ay ku sheegaan waxa ay soo mareen inay maalintii habeenkii saacadii ay sii diyaarsadaan ee saaxiibadooda xerooyinka qaxootiga la degan oo kale xataa ay kala sheekaystaan ayagoon sirtooda hoose sheegin inay si su'aalo isku weydiiyaan oo kale waxaana muhiim ah looyaradaada ama looyarkaaga inaad aamintid ood kalsooni siidid marka qaarkood interview ka hor looyarka ayaa kula kulmaya su'aalihii qaarkood oo ku imaalahay iyo ku weydiinaya anaga dhibkan haysta looyarkii xataa su'aalihii kama faa'iideysanayaan dadka oo su'aalihii ha iyo may ay uga jawaabayaan su'aalaha lagu hordhaca ah oo maalinta interviewga aad galeydid waa muhiim inaad ka sii faa'iidaysatid oo habeenkii aad sii diyaar garoodid gudoomiye haddaan ka dhex galo arrinta sharciga efta 10 sano laga dhigay hadda labada aqal ee baarlamaanka waa ansixiyeen bunduska loo diray bunduska ma dhacday taariikhda in baarlamaanka waxay isku soo raaceen oo ka soo horjeesta asoo shacabku u bandhigin ilaa way ku xiran tahay bundusrad go'aanka oo qaad haddii ay soo qodobeeyaan labada baarlamaan ku celiyaan marka qaarkood dooda waa ka dhici karaan laakiin inta badan ma dhacdo qodobo ay soo geliyaan markay wax ka bedelaan ayay ku soo celiyaan labada aqal wax ka bedel ku sameyn karaan labada aqal ay ku soo celinayaan dooda saas ku bilaaban kartaa marka haddii bundusraadka oo 7 xubnood iyo labada aqal ee baarlamaanka is qabtaan dacwadooda waxay la aadayaan maxkamadda sare soo maaha maxkamadda inta badan ma dhacdo arrimahan qaxootiga oo kale iyo ahafaawo kale arrimaha inta uma badna maxkamadda in la aado waxaa loo soo bandhigaa shacabka laakiin shacabka inta badan wuxuu ahay wax faa'iido uguma jirto loo soo bandhigo waxaa laga yaabaa bundusraadka inuu qodobeeyo oo labada aqal oo ku celiyo okay qofka ku xigo ugaaska okay ugaaska ma soo qabsan maxaa soo qabsaday وقت ممكن هاي بوغاسك سؤال هذا بوسي ولا وقت طلبان سؤال هاي ولا لو شرعيا إما كسبة بحي أهين 10 سنوات لقوا بدله FT سو مرر بدن تدومين كده وعشيو شيء يقفك هدي وتزاله إنه 10 سنة أنا سوينا واحد كده وقاطه ما قلب كم إذا بقى إن تتكدد uga fududaanayo waayo berigii horeba 5 sano ahayd dadku 5 sanadood ay muxuu ahay shaqeynayeen 2 sano u dambeeyay shaqeeyaan bay ahayd kadibna ay bedelaan halka sano ugu dambeeyay ma sharciba in dadku hadii ay shaqeeyaan aanay 10 sano sugaynin oo 2 sano ama 3 sano ay ku bedeli karaan sharci miyaa may ma santahay sharci ilaa hadda lama soo bandhigin mana habkoo noqonayo ilaa hadda ma ogin waxaan ka hadlayno waxa waaye maxaa sababay in efta 10 sano laga dhigo doodihii socday ee waxaa ku jiray in dadka efta loo jadiidiyo
lagu xiro shuruudo sidii beed iyo seeda loogu xiri jiray waagii hore efta waa la iska jiidi jiray qof dadka f haysta ayaa la rabaa inay dadaal sameeyaan horumar ah marka sida dhacdo dadka markay profession sameeyaan oo kale dadka qaarkood 5 sano maba gaaraan 3 sano ayaa lagu siiyaa dadka qaarkood laakiin dadka inta badan 5 ay ku qaataan laakiin qof kasta horumar sameeyo oo dadaalo wuxuu xaq u leeyahay inuu beeda qaato ilaa hadda qodobadii ama waxyaalihii dowladda soo bandhigtay gacanta kuma hayno xataa lama oga 2 sano kadib ma hirgeli doonaan 3 sano kadib ma hirgeli doonaan wax hadda la og yahay ma lahan wax miiska saaran waaye oo doodda ay socoto ilaa haddana waxaa socdo qayninkii hore ayaa weli socdo oo qofkii maanta oo xareeyo ama beri wuxuu helayaa qaynuunkii hore ilaa qodobkaas laga soo saaro oo la yiraahdo 2029 ayuu hirgelayaa markaas kadib ayuu qodobka hirgelayaa wax hadda aan walwal iyo xoog isku saarna maaha barnaamijkan waxaa loo sameeyey dalmar u sameeyey dad badan baa soo weydiiyey oo su'aalahaas in looga jawaabo ah shayda labaad su'aal baa harreeyo kale aan doonayna weydiiyo waxa weeyaan Switzerland waxay ku xigtaa hadda xuduudka qaybta Talyaaniga way ogtahay Soomaaliya aad u fara badan baa ka soo gasha oo intii ugu dambeysay hadda sanadkii ugu dambeeyay Soomaaliya aad u tiro badan baa Switzerland soo gashay qaar kalena way soo socdaan mar haddii sharcigan yimi faa'iido ma u tahay in looga digo Soomaalida soo socota inay waddan kale iska tagaan والله أنا قد ذكر ماذا يبحث مدهنا لكن ذكر عن شيء إنه وحياله ذكر سومالي أنا مدام سومالينا هاي هذا الشرب كده عيب بلجينكا وزير العدالة ده إسكوجي مادين وحياله لقد دوده وحواي طليانية إسبان يجرين أو كل وحيكون دودين إني قعدت كبدن وضمن يروح قلبات إهايان أو كبدن أو جوجو سيد الوقت هنا أما أنكو شيء إنه قف كستو طلياني كسر قلا طليانية دبلو جمع عليو الدوسن أهان قف قحوتنما شرعي هايستو او طلياني دقن okay mustafa gudoomiye arinta dublin-ka galayna dhalinyaradan hoogaa bal dad badan soo codsanaya waqtigan waxaa moodaa inuu isguraayo haye gabadhana siinayna waa idin salaam Soomaalida reer Switzerland ku korsaar iyo ku hoos joogabo abo waxa ku weydiinaa matqana carruurta meeshan lagu dhalo iyo kuwa ayko 10 sano ka yar la keenay citizenka marka laga hadlaayo maxay xuquuq u leeyihiin hooy afhaysta marka carruur halkan ku dhasho qaarna ay keento ayko 10 sano ka yar maxaa xuquuqdooda noqonaysaa gudoomiye ما سنت ولا شيء عرورت عدي سكولك إلى جلاسك شنادم الحاد جارين قبل هذا كل دويهن يدقموينك وحتى جي سامش عدقنت عدقمده عنق دوشن سنة بلح سنة جاري دقمده يا وديني عنق جي ربنا وحريو الله هذا هاي مركز قاركود وحكوا دينا يعني أنا سب بيلقون أنا هيستيد مركز قاركود ضد سعيدة يا جرى عرورته وكل رجالي إنا دلبدان باسبوركا لكن iska ilaali in adiga la dalbato ilmaha si gooniya hadii loogu dalbo Chinese-kooda waa fiican yahay inkastoo gobolada qaarkood ay leeyihiin waa in Netherlands bay oo haystaa laakiin galaaska shanaad ama lixaad markuu gaaro degmada ayaa tagaysaa meesha laga xareeyo su'aalaas ayaa weydiinaysaa waxayna kuu sheegayaan xilliga aad xarey kartid iyo xilliga aad heli kartid qof ku xigay dhalinyarada kale waan salaamay gudoomiye hal su'aal niyo lacala haddii sharcigaas hirgalo oo 10 sano laga dhigo habkii hadhow loo dalban jiray biida citizenka 10 sano markii hadda FT aan 10 sano kadib ku bedelo oo halkaas ay 5 sano noqoto biidi 3 sano may noqonaysaa sidina 2 sano may noqonaysaa iyo 10 sano halkaas macnaha qaab ahaan 10 sano ma ku buuxsan karaa iyadoo 15 sano noqonaysaa وما سنت ولكن إلا حد ما يقول شرعي قاس إنه هرجلا ينكر إلا حد ما هنو برلمان كأيام قامية قولها بندسرات أيو هريا لا دم يقول على دوننا قرمو هرجلا سنة كدي مو هرجلا سنة كساس مو هرجلا إلا حد ما يقول ما نكجوابي كرنا وحق وواحد كحرن دولة السويسكا مركز كدي يا لقى دودي كرا هذا واحد أقولها كلية قف ماكو سب بيقولون هستو إنه باسبور كدل بكرة وحلاقي يا بابا inaad xiligaas aad gaarin oo iska hor sharciga aad dalba kartid dad f haysatid oo beeda ku dalba kartid laakiin xiliga sanadka hirgalaya ilaa hadda ma ogin doodaha ma sii socod doono ilaa hadda lama oga waayo gudoomiye hal su'aal oo kale
new sharci waxaa la siiyey efa kadib qoladan kaartaas ba waxay soo dhigtay inaan raacfaan qaato maxkamadda raacfaankii baan la qaatay go-aankii maxkamadda kolley wuu gaadhay jawaabta maxkamaddu muddo intee laga bay qaadataa se maxaan ka filan karaa mastima seen bay raacdaa mise waa laga yaabaa in aniga ii raacdo oo aniga ii aqbasho inaan bii helo kuwa ku saaciday looyarada ma waxay kugu taliyeen inaad dacwooto mise adaa u bareeray inaad dacwooto ma iyagaa igula taliyay iyagaa ii soo bandhigay igu yidhi jaanis fiican baa ku jira weliba hadda jaaniskaaga kugu bandhigeen jaaniskaaga waa fiican yahay iska sug ilaa xilliga qaadan doonta ma ogin qofka xeego اوكي انس سك... السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته shacbiyaal idima soo qabanayo hal mar raggaan hore kor saarna dhameynayna kadib gudoomiyaha wuxuu ka hadlaa dublinka iyo arrimaha ka soo kordhay kadib waqtigan fiirinada inta hoos jirta aan soo saari karo insha Allah waxaan ka hayso اوكي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته عبد الغني اللي جواب سلامي iyo gudoomiyaha meesha saaran iyo dhammaan dhalinyarta meesha saaran ba wixii hoos joogada وعليكم السلام meeshaan waxaan joogaa sanad iyo adii 3 bilan joogaa markaani xagga Talyaaniga ka soo galay kadib adii daayar isku dhigay 17 marka 17 isku dhigay waxaan ku raayay diid ma soo dhaawax la yiraahdo negative kadib diidmada markay soo baxday bishii toddobaad waxaan qabsaday wax la yiraahdo raafaan 30 maalmood oo jaanis haystay ugu dheer waan qabsaday hadda maxkamadda waa la gaarsiiyay marka gudoomiyo ma laga yaabaa in maxkamadda go'aanka ay soo gaadho oo yani go'aan ay soo gaadho sharciisiiso nisasam in lagu wareejiyo ay ka tooseen haddana mar la ay soo jawaabto sida aan saaxiibka hore ugu jawaabay lawyerka hadduu ku yiraahdo arrintaada waa arrin adag waa kuguma talinayo inaad maxkamadda u gudubtid taas wax kale laakiin lawyerkaaga hadduu kugula taliyay inaad maxkamaddii dacwootid waa macquul in arrintaada ay positive tahay laakiin haddii lawyerkaaga uu ku yidhi jaaniskaaga ma haysatid oo hay adiga aad arrintaas go'aan qaadatay oo waddan kamid a Yurubna sharci ku lahayd arrintaada arrin fudud ma aha laakiin lawyerka hadduu kugula taliyay oo yiraahdo maxkamad tag waa arrin jaanis fiican marka qaarkood dad waxaa jiro lawyerkooda yiraahdo wixii maanta ka dambeeya arrintaada shaqo kuma lihin maadaama waddan kale oo Yurub ah sharci ku leedahay oo dadku u bareeraan in maxkamadda aadaan hadhow maxkamadda diidmo soo diido lacag 1200 ama 1400 ay soo raacido oo maxkamadii ah sababta maxkamadda shaqo adag ay qabanaysaa laakiin marba haddii warqadada hadda gudubtay waxaan ku rajaynaynaa nasiib wacan lawyerada markaan la kulmay waxay u dhahday yani kiiska haddaan ku guuldareysto waxaa la yidhaha lacaga 700 aad bixinaysa haddaan ku guuleysto free baa noqonaysaa warqada waxay soo gaaray in lawyerkii free looga dhigay hadda hawsha ay kala socoto waa fiicanta jaanis fiican ku rajay nasiib wacan isku day inaad waddanka ka bixin xataa haddii lagu soo diido sababta processkaaga waxaa laga yaabaa waddanka inaad joogtid dad Talyaaniga sharci ku lahayn ha ku degdegin inaad waddan kale Yurub u carartid waqti ayaa kaaga dhumaya dhalinyaro badan oo Soomaaliyana dhibaatooyin ayaa maskaxiin ayaa gaaray markay marba waddan u cararaan ilaa ay waddanka adiga laga wadaayo isku day inaad waddanka aad ka bixin waqtiga aheedan luqadda uga faa'iideyso ma santahay waaya Yonis السلام عليكم السلام عليكم gudoomiyaha dhammaan asxaabta meesha ku jirta laba su'aal aan wataa su'aasha koowaad waxa waaye mar uu ku dhawaajiyo gudoomiyaha dhakhtar nafsiga markaas aniga gudoomiye inaan haystaa 10 biloodna waan joogaa Switzerland weli go'aan ima siin dhakhtaradaas waa la kulmay oo dhakhtar waxaan galay maskaxda ah waa galay laba dhakhtarood baa galay cusbitaallo waaweyn ah warqadana waa isiiyeen warbixinteeda caafimaadka markaas warqadahaas ay siiyeen dhaqaatiirtaas cilmi nafsiga ah saameyn ma ku yeelanaysaa marka ay go'aanka gaarayaan ma fiirinayaan taas waaye su-aasha labaad aan ku weydiinayo waxa waaye interviewgayga aniga diidmaa haystaa laba diidmaa garigaa ka haystaa hadda weli waa hal interview laga qaaday ma aqaan maarta waa sugaa jawaabta laakiin waxaa keenay sheekadeedii iyo sababta aan ingiliida u doonanayo wax caddeynayo oo Soomaaliya ka socdo dukumiinti caddeynayo booliiska Soomaaliya ka socdo keenay taas marka go'aanka ay gaarayaan ma fiirinayaan ciyaal xanuunsanaya aan aabbo ahay Soomaaliya jooga ciyaalkaasi waa keen warqada dhaqaatiir Soomaaliya oo sheegaya in Soomaaliya waxba aan laga qaban karin taasna saameyn ma ku yeelanaysaa markay go'aan gaarayaan
ama fiirinayaan waa maasanta walaalkiis sida aad sheegtay allah ku caafiyo marka hore anaga dadka kuma talalay ma ahayn inaan ku dhiirigelin in isbitaal tagaan waxaan ka hadlaynay praxis ayaa jira oo ay dadka ay kula kulmaan ay kula sheekaystaan dadka cilmi nafsiga ah marka mar haddaad warqaday haysatid warqadahaas looyarkaagu inuu sii raaciyaa waaye markii aad interviewga leedahay iyo waxyaalaha kaloo muhiimku ah waxaa waa dhibaatooyinkii aad uga soo carartay griiga inaad si fiican u sharaxdid inaad shaqo heli karin ina meel jiifkaaga culays lahay waxaasoo dhan inaad si fiican u sharaxdid ayaa laga rabaa sababtoo ah soomaali badan oo sharciga griiga ayaa waddankan hadda yimid kuwaasna culays ayay ku tahay qofka haduusan si fiican u sharxi karin waa maxay waddankaas griiga waxa uga yimid maadaama griiga uu yahay waddan yuruba leh qofkii griiga sharci ku haysta waxbarashana ku heli karaa waxaan ku talaleeyahay inuu griigu iska joogo waaye kamaal su-aashii labaada ku weydiiyey gudoomiye dukumentiyada soomaaliya ka keenay ma anfacayaan oo ka hadlaya dhibaatadii aan soo maray oo dowladda soomaaliyana ay caddeynayso wax kastoo dokumenti aad keentay oo looyaradaada u geeday waxay u gudbinaysaa seem waxaas dhan waa ku saacidayaan haddii jaanis u yeerato interview labaadna inaad si fiican u sharaxdid waayo inaad u noqon karin labadii waddankii soomaaliya ka timid iyo griiga sababahan aad sheegtid waayahay yorso maastaa kamaala ku xigo kadib qof kalaan siinaa kadib dadka intaana soo qaban arrinta dublinka dad badan sugayaan rabna inaan ka hadalno kamaal haddaa ku jirto soo qabso haddii kale qof kale u gudbaynaa marka kamaal wuu ka maqan yahay yaa kusii xigo horta waan salaamay dhammaantiin soo dhawaad waxaa waaye horta su-aashaas oo kala duwan tahay ani waxaan rabaa inaan i weydiiyo gobolkee fiican inaan iska dhiibo haddaan meesha usoo socdo wey teeda kale horta dadka dhammaan horta waa arkay inay maaragtay fara iyo waxaas iyo wax sheeganayaan anina wax fara ma lihi marka janis fiican ma kasii leeyahay dadkan kale saaxiib ku salaamayna haddaad weli aad imaan kale meesha usoo socoto haddii Swiss-ka tahay waxay ku xiran tahay inaad si fiican usoo diyaargarowdo inaad si fiican usoo diyaargarowdo dhibaato aad ka soo carartay ayaa jira ayaan fahmayaa inaad si fiican usoo diyaargarowdo anagana kuma dhihi karna gobolkaasaa fiican iyo gobolkaas ka dhiib calafkaaga ayaa qabtaa iyo gobolkii lagu bedelayo taas migrationka ayaa og waxayna ku xiran tahay hadba markii dadka la bedelayo degmooyinka iyo gobolada firaaqooyin ay ka jiraan kale oo dadka waa loo qaybiyaa qaxootiga dadka marba deegaana loo kala qaybiyaa kuma xirna meesha aad iska dhiibtid iyo meesha aad deganaan doontid taas waa calaf iyo nasiib wax kaliya oo heli kartaa haddii jiraan qof xaaskaaga ah ama qof walaalka ah ama qof kula dhashay oo gobolkaas kaaga sii horreeyey taas inay ku saacido ayaa laga yaabaa okay wiilkan dhowr mar su-aal hoos kugu soo weydiiyey hal mar kuu soo saaray saaxiib soo koob weydii barnaamijka la rabnaa inaan galo saaxiib aad baad idin salaamaya dhammaan guddoomiyaha kulli hal su-aal baan wataa ma dheereynayo efta ma lagu bedelan karaa shaqada waa intaa hoose keliya shaqada waa lagu bedeshaa mar kasta muhiimadda hadda waxaa loo soo saaray 10 sano inaan fahanno waayo efta waxaa hadda culayska loo saaraya waxaa waaye beriga hore qof kastoo eft ka dhacdo waa loo jiidi jiray ayagoon shuruud lagu xirin hadda waxay rabaan in dadka la yidhahdo qofka inuu dadaalo oo shaqeeyo oo soshaal ka baxo oo dadku dambiyada galay oo kale kuwaasay u dan leeyihiin laakiin qofkii shaqeeyo caafimaad ilaahay siiyey oo luqadana bartay mar kastaba oo ka jaanis fiican qofka kale inuu cabsado ma bahalo marka 2 sano oo kale iyo 3 sano oo kale lagu bedelan karaa Soomaaliya qofka hadduu shaqeynayo hadda kale 10 sano ayay sheegeen xilligoo hirgalayo ma ogin hadda weli qaynuunka hore ayaa jiro 5 sano ahay qaynuunka hore 5 sano ayaa jiro hadda 3 sano joogtid hadda warqada iska sii qoran kartaa waa dalba kartaa hadda isku filan tahay waxa laga yaabaa inay kuu soo jawaabaan ku dhahan xilligaas ay helaysaa waxaan kaaga baahana hadda warqadaas inay ku saacidaa laga yaabaa hadda 3 sano joogtid haye guddoomiye aad baan ku salaamay daqana sax aad baan ku salaamay haye brother maanta haye diyaar soo dhow adiga عليكم ورحمة الله وبركاته. سنحدثين وأنا خلاص دقنا علينا سلامة. كل هذا كان المصري بقنا على السؤال المدينة يا ينكر عليه. أصلي صلى الله عليه وسلم وكم قال هذا. السؤال أنا في المدينة يا وحوي أنا ولا. أصلي سووا فاميلي وضن في السوق علي
ilmo 2 sano awatay ninkaa kadib muddo dumni saarnaa oo adi fara talyaani ku lahaa 2 bilood gudaheeda dumninkii laga cafiyey markuu talyaanigu uu dhahay wadanka qofkaa ma rabno oo farii laga cafiyey oo wadanka soo dhawin laga helay oo ilmo labaad haddana ugu dhashay oo ilmihii labaad hadda muddo bil ah jiro weli sharcigii inta haysta processkiisu macnaha muxuu noqon karaa oo interviewgii u dhammaystay midda kale labadii interview dhammaystay kii 3 saacadood ilaa 45 saac la galay wada dhammaysteen weli intii haysta cunugu labaadna ugu dhashay meesha cunugna la soo galay wax dublinana hadda saarnay soo dhaweeyey maxay nafay xaaladii waa maasan tahay qofka dublin saaran 6 bil waa inuusan waddan ka bixin meesha uu degan yahay xerada uu degan yahay ama gurada uu degan yahay waa inuu sharciga meeshaas dhowraa hadduu xataa meel aadayo weekendiga oo kale inuu sheegaa meesha uu aadayo waxaa laga yaaba waraaqad inay u timid waxaa laga yaaba in la bedelo waxaan ku talinahay 6daas bil qofka inuu u adkaysto 6daas bil kadib waxa uu imaanaya interview markaas ayuu qaxootinimadiisa ay bilaabanaysaa oo sheegayaa waxa uu soo qaxay dhibka oo ka yimid markaasay u bilaabanaysaa 6 bil kadib ayay Swiss-ka interviewgii saxda ahay oo sharciga lagu sii lahay ama loogu diidi lahay ay ka qaadayaan laakiin waa in 6daas bil goobta uu degan yahay oo ku nagaado oosan ka bixin dad ayaa waxaa jira inta cararaan haddana soo noqdaan sanaday qof ku noqonaysaa sanad ayay ku noqonaysaa waana culays kale qof kasto maalintii 6 bil u bilaabanayna qofka waa loo sheegay lawyerka ayaa u sheegay uu leeyahay maalintan ayay kaaga bilaabanaysaa waxay dhammaanaysaa bisha abriil 18-keedii marka waa inuu tirsadaa 18 abriil haddii 6 bil tahay hadda maanta kale aan qiyaasnay marka qofku inuu hadda caruur kugu dhalatay iyo haddii kale muhiimadda waxaa waaye 6 bil kadib ay qaxootinimadaada ay bilaabanaysaa interviewgaas aad ka sheegayda dhibkaaga kaas ayaa lagu qiimeynayaa marka interviewga labaad waa dhammaystay ahayd marka waxaasi waa qasab ah in 6 bilood ay dhammaato bacdeen aan jawaab waddanka ka siiyo soo ma jawaabta interviewga waxaa ka horreeda lagu cazumaya interviewga lagula yeelanaya interviewga lagula yeelan doona ayaa muhiima waxaa mar labaad lagu weydiinayaa maxaad Switzerland u timid maxaad uga soo qaxday meelihii aad soo martay halkee soo martay su-aashaas ayaa ku hortaalo 6 bil kadib lagu weydiinayaa waa tan sharciga lagugu sii doono ama lagugu diidi doono okay ma hastad labadan gabdhood maadaama ragga nagu badan yihiin gabdhahan 2 gabdhood aan fursad siinayna kadibna arrinta Dublinka galna raali ahaada rag badan oo hoos ka qeylnaya Dublinta sugayna ku haya jiro labadan gabdhood aan siinayna kadibna arrinta Dublinka mustaqbalka insha Allah gudoomiyaha ay gabadha go'aan soo dhawaabay walal wanda waxa qabaa hal su'aal ani farma lahayn da'yarna way ugu qaateen 10 bilood hadda waan joogaa 3 interviewna waan galay laakiin hal dhib baa jirta interviewgayga dhib aan sheegtay ay yiraahdeen waan kaasoo baarnaa dhibkaasna ma qabin marka haddii waxaan sheegay iyo baaritaanka islaam iyo maxaa jawaabteeda dhib ku iman karaa haddaad faran lahayn oo 3 interview lagaa qaaday wax hadda aad sheegatay aniga ma ogada is og jaanis fiican waaye laakiin waxaa lagaa rabaa hadda kolley wax ma barataa ma shaqaydaa ma ogid inaad qolooyinkan cilmi nafsiga aad la xiriirtid aad la sheekaysatid kuwaas qoraale ay kuu qorayaan oo lawyerkaaga saacida ayaa jira si warqadaasoo kale xagga caafimaadka oo kale hurda la'aanta dhibaatooyin ku haysto qof 10 bil wax sugayo qof culays saaran yahay waaye inaad qolooyinkaas inaad dalbatid aa muhiima oo ay kula sheekaystaan waaye gabadha kale عليك ساعات كرقات laba su'aalood aan rabaa inay igu jawaabtiin midda koowaad waxaa waaye waddankan daayira ku jooga 7 bilooda qaangaarkayga uga dhiman dowladda qaxootiga haystaa hooyada ma soo wadi karaa hooyada ma tiri hooyada inaa soo wadaa rahaa waddanka waa mahadsan tahay hooyo waa muhiim laakiin waxaan kugu talin lahay adiga inaad luqadda baratid beeda lagu siiyana aysan wax kuu dhiibin adiga ahaan oo lugahaaga isku taagtid aad wax baratid qof dhalinyaro aad tahay adiga markaad isdabartid ayaa hooyo badari kartaa hooyo allah caafiya haddii meel ay joogto caafimaad darro hadday jirto maskaxdaada waxaa muhiim inaad ku xirtid inaad adiga meel iska soo saartid kadib ayaa hooyadaa saacidi kartaa haddii kale culays bay kugu noqday adiga xataa sababtoo ah hooyadaa ma keeni kartid
maadaama hadda adiga wax yar ay kaaga dhaman yihiin inaad qaan gaartid sababta hooyo waa u baahan tahay laakiin aniga waxaan kugu talinahay inaad adiga waxbarashadaada xoogga saartid looyarkaagana waa ka codsan kartaa hooyada inaad keentid laakiin muhiimadda inaad adiga naftaada xoogga saartid aan kugu talinahay aniga qof dhallinyaraad tahay waayahay waa u dhamaysaa walena su-aasha waxaa waaye beeda yacni meeqa sana ku bedelo karaa beeda sanad kastaa la bedelaa laakiin waxaa muhiima inaad ogaatid mararka qaarkood dadka sharciga la siiyo ayaga ayaa culays isku rida inaad nasiibka aad leedahay horta waa kuwa hambalyaynana been lagu siiyo hambalyaan ku leenahay waa inaad xoogga saartaa beeda inaysan culays kugu noqon oo aad horumarkaaga iyo waxbarashadaada aad xoogga saartid beega sanad kastaa la jadiidiyaa beeg qaxooti waayaan filayaa waddanka macaali kartid soomaaliya ka timid muhiimadda beeda inaad ka faa'iidaysatid aad profession baratid aad noloshaada u jiheedid inaad integration sameeyid oo iskoolaadka aad tagtid oo aad dadka saaxiibada ay kaa horreeyey ama dadka dhallinyarada gabdhaha ah aad la sheekaysatid sababta dhalinyaro badan oo beeda la siiyay waxaa jira beeda culays ku noqotay kuwa f la siiyey ayaa ka wanaagsada kuwa beeda la siiyey kuma dhahaye waa kaa wanaagsan yihiin nasiibaa leedahay laakiin waxaan ka wadaa beedayaas culays kugu noqon dadaal sameey waddankan waa adag yahay waa waddan shuruuc adag leh marka isku day inaad ka faa'iidaysato beeda inay kuu noqoto mid jid fiican kuu furto adoo mahadsan waa mahadsan tahay haye gudoomiye arrinta oo dublinka dad badan hoos jooga waxay leeyihin arrintaas suganaa wixii aad ka dhihi rabtid soo dhowo waa mahadsan tahay cabdiqani inta badan soomaalida badan waxaa jirta oo waddamadan yurub markay yimaadaan oo u kala goosa jarmalka iyo faransiiska griiga isbaaniya marka dhalinyaro badan waxaan aragnay culays ku noqday noloshoodii waqtigoodii iska khasaariyey dhibaatooyin naftooda soo gaartay marka waxaan ku talinayn dhalinyarada waddamada isbeeniya oo kale hadda waa adag tahay qof isbeeniya sharci ku leh ama qof talyaaniga sharci qaxooti ku leh ama ingiriiga qof sharci ku leh inay waddankan swiiska uu joogo marka waxaan ku talinayn qofka hadduu isbeeni yimaado oo heli karo inuu wax barto oo shaqaysto inuu isbeeniya aamino oo ku kalsoonaado talyaaniga qofna laguma celiyo qofki aan ka ahayn sharci qaxootini talyaaniga ku haysta qofkaas waa la celinaya laakiin qofki kale ay fara laga qaaday talyaaniga 6 bil halkan joogaya 6 bil kadib ayuu qaxootinimada swiiska oo weydiisanaya waa inuu 6daas bil oo swiiska ka bixin oo ku nagaadaa 6 bil kadib ayuu codsanayaa codsiga qaxootiga interview ayaa loo soo dirayaa markaas ayaa laga rabaa inuu si fiican u diyaar garoobo oo u sheego wuxuu halkan u yimid safarkiisa Liibiya taas ayaan ku talinahay dhalinyaro badan ayaa waxaa jira iskala galgoosho Jarmalka iyo Faransiiska oo 6 bil ay ku noqoto sanad oo waqti badanna uu ka dhacay marka waxaan ku talinahay dhalinyarada inay u adkaystaan 6daas bil kadib ayay waxay noqonaysaa interview Swiiska ay u soo dirto dadka talyaanigana waxaan u sheegaynaa talyaaniga qof looma celiyo talyaaniga haddii fara laga qaaday haddii kale codka maqle raalaho nin oo reer aaro codka iga xiray gudoomiye waxaa jiro dad oo swiiska ka cararo ama f la siiyo ama si kale uga cararo yurubtaan kala tago swiiskan waxaa la sheegaa faraheeda inaysan cafini dadka soo ceshato oo inta badan dadka ay dib u soo ceshtaan ma jirta arrintaas waddamada yurub heshiish talyaaniga qof talyaani ka yimid ma qaataan kale waxay ku xiran tahay qofkaas ka baxay Switzerland ee tegay Jarmalka ama Isbaaniya inta sano oo Switzerland joogay waxyaalaha uu cararay iyo wuxuu soo noqday taas ay ku xiran tahay laakiin inta badan culays ayay ku tahay dadkaas oo Jarmalka ka imaanaya ama Faransiiska inta aragna dib ayaa loogu celiyaa laakiin qofku waxaa laga rabaa marka wax sheegayo wax asaga shakhsiyan ku dhacay dhibka uu u soo noqday inuu sheego ay ku xiran tahay taas laakiin inta badan talyaaniga dadka ka yimaado looguma celiyo talyaani looma celiyo griiga waa laga yaabaa marka qaarkood inaan qofka la celin markuu sheego si fiican u sharxo dhibka Griigland uga soo cararay culayskii haystay inuusan shaqo helin inuu shaqo raadiyey inuu caddeyn karo shaqaan raadiyey waan waaye guri waan waaye hay-adaasaan la xiriiray waan waaye markaas kadib qofka hadduu caafimaad darro heedoo kale jaaniskiis markaas qofka waa fiican yahay laakiin baryahan dambe waxaa badatay
dadka ka imaanaya Spain inaysan jaanis lahayn oo Spain loo celiyo. gudoomiye dad badan aan sugaya laakiin waqtiga na hayo hadda hal saac aan ku jirnaa marka waxaan sameynaynaa saaxiibayaal in isbuucii aan gudoomiyaha ka codsado inuu hal mar live-ka noo soo qabsado oo wixii markaas soo kordho haddii wax soo kordhaan aan halkaa idinkugu soo gudbino mowduuca maanta aan u qabanay waxa waaye kow arrinta efta oo baarlamanka Swiss-ka ay ansixiyeen in 10 sano lagu qaato hadda kadib macnaha lagu bedelo walow Bundesratka laga warsugayo gudoomiyaha arrintaas wuu ka faahfaahiyay dad badan oo aan jaanis siin waa uga jawaabay arrinta Dublin-kan hadda wuu idinkala hadlay marka waqti aad noo hayo maxaa ku soo gabagabeynay gudoomiye Mustafa Cabdiqani Cali Damar ma santahay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo gabdhaha waxaan leeyahay dadka wadankan jooga inaysan ka cabsan arrintan efta haddii 10 sano noqoto haddii 5 sano noqotaba dadku inay dadaalaan inay luqadda wadanka bartaan haddii 10 sano laga dhigo boorsooyinkeena qaadanayna kulligeen maya waxaan leeyahay anigu 8 sano ayaan FST 8 sano ayaan FST in bay la helay xataa ma ogeen waqtigu waa soconaya qofku muhiim waxa ah inuu caafimaad qabo inuu luqadda wadanka u barto inuu shaqeeyo wixii waxaas ka yarna waxa waa dhibaato ma leh muhiimaddu waxa waa dadku inaysan wixii dawladda ku xiran dawladda shaqadeeda waay wax adiga waxa jir nafsadaada ku xiran dadaalka adiga shakhsi ahaan adiga halkan yimid aniga waxaan dhahaa safar dheer soo gasheen qofkii halkan yimid 80% waa guuleystay 20 ku harna asaga iyo dulqaadka ku xiran tahay inuu qofku sabar leeyahay waa inuu qofku la sheekaystaa qofka Swiss-ka jooga ma qofka Jarmalka jooga iyo Faransiiska iyo Sweden inuu la sheekaysto maahan oo inuu qofka Swiss-ka joogo oo la sheekaystaa qofkaas isku dan yihiin taas ayaan ku talinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed rag iyo dumar dadka sharciga la siiyay beedan waxaan leeyahay ka faa'iideysta nasiibkiina oo wax barta profession-kana barta amaan dadka taawanayo gudoomiyaha Somali Swiss diaspora hal follow gareeyo ninka wadankan xogtiisa arrimaha migration-ka kala hadli kartiin waay insha Allah waxaan isku dayi doonaa inaan bishii 2 isbuuc mar noo soo qabto wiilkaana ku soo gabagabeeyna oo dhowr mar igu soo celceliyay inay soo qabto soo dhawo saaxiibow su'aasha soo koob ما صنت صاحب عبد الغني وجانس كاسيس وكان هذا علنا قدوميان والسلامية نيو هل سؤال أنا ويدي ربا أنا دلني ka soo gashay waxa ku jira wadanka Spain interview kowaad intaan ginin ka hor looyaradeedu waxay ii sheegtay inaana ma aragtay wax xogteeda hadii loo bandhigay Switzerland Spain in laga waayay ninka ku wareysanaayana haduu ka wareysan Spain inaad waxba ka wareysan marka ma laga yaabaa inay mar labaad ii soo dalacaan ilaa 3 bilood ah jooga wili interview labaad ma gelin daada ay weystaan ma laga yaabaa inay dhahaan haddana mar labaad faraa ku leedahay wadankaas Spain waana ma santahay ma santahay lawyer-kaaga kullee wuxuu kugu taliyay inaad qaadatid waaye laakiin marka qaarkood waxaa lagu weydiinayaa inaad runta ka sheegtid marka interview-ga la qaadayo ma u malaynayo fara la qaaday in la weyd doono muhiimadda waxaa xoogga saartaa dhibkii aad Spain uga soo tagtay culayska ku haystay waxaasoo dhan xoogga saar haddii fara helaan lawyer-kaaga ayaa kuu soo sheegi doona interview ka hor ayaa ogaanaysaa lawyer-kaaga ayaa kuu sheegaya maalinta uu kuu sheego oo ku raad bari interview-an aadaynaa farahaaga waa la helay markaas inaad diyaarsatid waaye in wax culayskii aad Spain uga timid oo qayaxan dhibkii noloshii xumeed waxaasoo dhan inaad sheegtaa lagaa rabaa taas interview ka hor waa ogaa doontaa lawyer-kaaga waa kula kulmaya interview ka hor waa kula kulmaya asaga ayaa kuu sheegaya marka diyaar garow inaad sheegatid waxay Spain uga soo baxday iyo safarkaaga adkaay iyo wadanka aad soo martay taas ayaan kugu talinaa doolira wiilkan mar horena waa isla hadalna dhowr mar wuxuu ku yiri dowladda Spain waxay lagu yiri dowladda Spain farahaaga ama xogtaada waa laga soo waayay bas haddii lawyer-ka interview-ga maalinta loo wacay lawyer-diisa soo sheegin dhibtii oo Spain uga soo tagay inuu sheeg kaliya waay sababta lawyer-da waxay tahay su'aal xitaa clear inuu nagu sameeyo see ku ogaadeen Spain faraha laga soo waayay interview koowaad su'aal xitaa ligama weydiin Spain 4 saac ku jiro adiga ma lawyer-kaagu sheegay marka Spain ka timid aniga u sheegay marka interview runta u sheegay okay fiiri waa iska fududahay aniga jidkan soo maray fara lagama qaadin saasan Switzerland ku soo gala leedahay
wax fudud waaye taas adiga kuma saarna dowladda Spain u taala ma fahanta اوكي وما صنتها قدومي عبد الغني ما كلام xilligaa joogta Spain inaad soo koobtay noqonayda markaas darsh صنتها هاي سيكي انا ما صنتها عبد الغني قدومي رجع كبر انمي هي سؤال شيء رجع على كبر قدومي waxa weydiinaya ifa wata kowda qudoomiye hadda waxa la tawasaran laga dhigay marka afta ma shaqo baa lagu bedel karaya والله 10 سنه xilliga baarlamaanka ma ogin waa xildhibaanada baarlamaanka aqala soo saaray bundesraadka dowladda Swiiska madaxdeeda ay u taalaa ilaa hadda lama go'aamin xilligu bilaabmayo sanad ka dib miya 2 sano ka dib miya ilaa hadda shuruucdii hore ayaa wali socota oo qofku inuu af ku shaqaysan karo 5 sano lagu bedeli karo taas ayna hadda ognahay waa war cusub warkaas xilligu dhaqan galayo iyo xilligu bilaabanayo Cabdiqani Dalmar ayaan ka sugaynaa asaa noo soo sheegi doona ان شاء الله قدومي ان شاء الله وما ستة سيكي صاحب يا الوائز وقدوميها وفصحنا مدة هل ساعة وقت كنا وجود جراء وحن فيها سؤالها ربتين إن لجودة الجواب بدن كودا dadka wali isoo leeyihiin laakiin ilaa dhowr iyo 30 qof hoosta fadhiso laakiin hal ahaada waqtigan ugu dhacay axadan baa gudoomiyaha ka codsanaa marka la soo celino wixii su'aalaha sii diyaarsada axadan bixiliyada galabta isku dayanaa marna live soo galno insha Allah arinta sidoo gudoomiyaha idin sheegay waxa weeyaan baarlamaanka Swiiska waxay ansixiyeen in dadka afta haysto 10 sano loogu bedelo waa laga diidan yahay golaha federaalka diidan gudoomiyaha uu faahfaahiyay mar golaha federaalka la sugeynaa inuu baarlamaanka u soo saaran u raaco ee inuu wax ka bedelo iyo in tusaale ahaan shacabka loo bandhigo shacabku ka soo marka gudoomiye waa kaaga mahadcelinaya waqti haddii su'aalo qaas ah oo arrimaha immigration-ka ay qabtaan gudoomiyaha follow gareeya message u qora asaa idinkaga soo jawaabayo Mustafa Bashir Goobdoon gudoomiyaha Soomaali Swiss Diaspora aad baa kaaga mahadcelinayna waa maasantiin dhalinyarada Zurich waxaan u ballan qaadayaa gobolka Zurich integration ayaan sameynaa kulamo kafe ayaa jiro qofkii waxyaalo hoose shakhsiyan haystana diyaar baan u nahay inaan la talino muhiimadda talada ugu fiican waxa waa lawyer-kaaga inaad runta u sheegtid wixii talana ka qaadad waa mahadsantiin asalaamu calaykum